Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Nuur Maxamed Kamas. Ku soo dhawaada channel-ka Arday Kaab. Maanta waxaynu eegi doonaa taariikhda dalka Suudaan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channel-kan, taawo calaamadda subscribe-ka si ay kuu soo gaaraan wax walba oo aan halkaan soo gelino. Dalka Suudaan waxa uu ka mid yahay dalalka ugu muhiimsan qaaradda Afrika. Dalka Suudaan caasimadiisu waxaa lagu magacaabaa Khartoum. Afka rasmiga ah ee loogu hadlo dalkani waa afka Carabiga ah. Nidaamka maamuleed ee ka jira dalka Suudaan waa nidaam jamhuuri ah. Dalka Suudaan wuxuu xorriyadiisa ka qaatay gumeystihii weynaa ee Ingiriiska iyo dowladda ay deriska yihiin ee Masar sanadii 1956. Dalweynaha Suudaan wuxuu ku fadhiyaa masaaxo dhuleed dhan 900,000 oo kiiloomitir iskuweer ah. Lacagta waddankan laga isticmaalo waa jiniyaha Suudaaniga. Dalka Suudaan waxaa deris la ah dalka South Sudan oo beri aan fogeyn ay isku ahaayeen waddan qura. Sidoo kale, dalka Suudaan waxay wadaag yihiin dalalka Eritrea, Itoobiya, Masar, Liibiya, Chad, iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Dalka Suudaan wuxuu ka mid yahay waddamada uu qaaradda ka maro webiga lagu xanto in uu jannada ka soo burqado ee Niilka, waxaana goob aan ka fogeyn magaalada Khartoum ku kulma Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah, halkaas oo uu ka samaysmo Niilka Weyn. Shacabka reer Suudaan boqolkiiba 96 waa dad Muslimiin ah. Dadka reer Suudaan waxaa lagu sheegaa in ay yihiin Carab iyo Madow isku milmay, iyada oo ay jiraan dad aan badnayn oo asalkoodu yihiin Turki, Masriyiin, Liibiyiin, Eritrean, Hindi, iyo Itoobiyaan. Tirada shacabka reer Suudaan waxaa lagu sheegaa 38 milyuun, taas oo ka dhigan in uu yahay waddanka 35aad ee ugu dadka badan dunida, iyo waddanka 9aad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Dadka reer Suudaan marka laga soo tago luqadda Carabiga, waxaa kale oo jira ilaa 300 oo afaf kale ah oo maxalli ah. Isha ugu weyn ee dhaqaale ee dalka Suudaan leeyahay waa saliidda. Sidoo kale, waxay dhaqaale ka sameeyaan shamiitada, sonkorta, kabaha, batroolka, iyo xoolaha. Dhanka aqoonta, reer Suudaan waxbarashada aad ayay u jecel yihiin, waxaana ku yaalla jaamacado caan ah oo looga yimaado gudaha dalka iyo daafaha caalamka. Jaamacadaha dalka ugu caansan waxaa ka mid ah Jaamacadda Caaliga ee Afrika, oo ay ka soo baxeen aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed. Arday badan oo Soomaaliyeedna ay dhigtaan. Suudaan waxay ka mid tahay ama kaalinta koowaad ugu jirtaa dalalka ardayda Soomaaliyeed ay ka helaan deeqaha waxbarasho. Furaha ama koodhka waddanka Suudaan ee taleefanka waa +249. Haddii aad qorsheynayso in aad soo gaarto waddanka Suudaan, darawalna aad tahay, waddada waxaad ka leedahay dhanka midig. Haddaba, waa inaga intaa taariikhdii koobneed aynu ku eegaynay wax ka baro waddamada caalamka iyo weliba taariikhdii dalka Suudaan. Intaanu ku kulmi doono taariikh ceenkan oo kale ah,
Waa Nuur Maxamed Kamas oo idin leh fadlan nagu dhiirigeliya subscribe oo nala noqda saaxiib dhow. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Waxaan ku rajaynayaa caafimaad. Sidaas iyo nabadgelyo.